filim laga sameeyay weerarkii lagu qaaday bas rakaabka qaado oo ku sii jeeday Mandera bishii December 2015 ayaa loo xushay inuu tartamo abaalmarinta aflaamta caalamiga ah ee Oscar-ka loo yaqaano. filimkan waxa uu noqday midkii ugu wanaagsan ee ku saabsan dhacda dhaba oo dib loo matalay waxaana hadda uu ka mid yahay kuwa u tartami doona abaalmarinta 9aad ee Oscar-ka. muuqaalku waxa uu ka hadlayaa nin muslima oo difaacaya masiixiyiinta gaariga la saarnaa oo kooxda al-shabaab ay doonaysay inay dilaan. ninkaasi muslimka ah ee Soomaaliga ahaa ayaa waxa uu dhaawacmay kadib markii uu isku dayay inuu kooxda al-shabaab ka hor istaago inay kala saaraan masiixiyiinta iyo muslimiinta la saarnaa baska. baska ina ka soo degtina raba gaal muslima ina kala soo celiyay wewe ulikuwa na mama Mkristo wako wapi? Ako wapi? Ndio mfundisho wa Qur'ani. weerarkaasi baska lagu qaaday waxa uu ka dhacay meel ku dhow magaalada Mandera ee waqooyi bari wadanka Kenya. wuxuu filimkani ku guuleystay ilaa 40 abaalmarinood oo qaaliya oo la xiriira bandhiga aflaamta caalamiga. shaacinta in la soo xushay ayaa waxa lagu dhawaaqay salaasadii shalay saacad ka hor intii aan muuqaalka filimkaasi laga shidin shaneemooyinka magaalada Nairobi. filimkaasi oo loogu magac daray Watuwoti oo macnaheedu yahay dadka oo dhan waxaa jiray 3 arday oo u dhashay wadanka Jarmalka. filimka Watuwoti ayaa waxa inta badan uu muujinayaa dhibaatada ay wajaheen rakaabkii saarnaa baskaasi waxaana lagu jilay magaalooyinka Nairobi, Miyangi iyo Magadi ee dalka Kenya. baskaasi oo sideen ka badan 60 qof oo rakaaba ayaa waxa uu ka baxay Nairobi wuxuuna ku sii jeeday Mandera. koox hubaysan ayaana jidka u galay oo rasaas ku furay waxaana ay joojiyeen gaariga oo markaasi ku sii dhawaa ceelwa oo saaran xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.